kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka waayaha bulshada oo idinkaga imaada magaalada Nairobi toddobaadkana waxaan ku soo qaadanay taariikhda ganacsiga ee xaafadda Islii waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac ganacsiga Soomaalida ee xaafadda Islii waa mid sii ballaaranaya sanadba sanadka ka dambeeya marka loo fiiriyo 15 sano ee la soo dhaafay oo ay ahayd xaafad haddana isu bedeshay suuqa ugu weyn bariga Afrika oo ay u soo adeeg tagaan jinsiyada kala duwan oo ka kala yimaada bartamaha iyo bariga Afrika ganacsiga Soomaalida waa mid ka horeeya ganacsiga jinsiyadaha kale ee ku nool dalkani Kenya taas oo loo sababaynayo in ay yihiin Soomaalida dad furfuran oo soo dhaweysta macaamiisha waa kan isku duwaha guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii Cumar Axmed Nuux oo inoo sharaxaya taariikhda ganacsiga ee xaafadda Islii Islii suuqana xaafadan waa xaafad hadda suuq bay noqotay kulka horena xaafad bay ahayd waana aragtaan ganacsigu baaxad u leeyahay iyo dukaamadu iyo isdhex marka iyo socodka hadda baaxad ay leedahay waa goob ganacsi oo kamid ah meelaha ugu ganacsiga badan waddanka Kenya ayay noqotay hadda inkastoo kulkii hore ay ahayd xaafad la dego oo xaafad deegaan ay ahayd laakiin hadda waxa isku bedeshay suuq weyne guud oo la yaqaan oo Afrikada dhexe iyo Afrikada bariba la iskaga dhex yimaado oo laga soo ganacsi doonto marka bilowgii xaafaddu waxay ku bilaabantay hal suuq buu ku bilaabmay say taariikhda qoran suuqaasna waa suuqa Garissa Lodge ayada oo loojo xaafadda la simeesha kulkii hore markay Soomaalidu waddanka ay ka soo barakaceen waddankoodii 1994 ayaa waxay xaafadda Islii suuqaas wuxuu ahaa meel loojo oo dadku isugu yimaadaan oo dadka Soomaaliya ka yimaada ay ugu imaan jireen dadkooda halkan ama iska wareystaan ama qofku markuu qof u baahan yahay ama wargelin uu rabo meesha la isugu yimaaday ahayd oo shacabku isugu yimaadana kala war qaataan sida hadda xaafaddu dadku ay iskaga helaan masaajidkan 6 hadda inagu dhow ayaa waa goob dadku isugu yimaadaan markii salaada la isuga baxo kadib waa la is wareystaa hebel xageed ka timid goormo yimid meel saas ayay meesha suuqaas ahaa barigaas marka suuqii lodge-kaas baa wuxuu isku bedelay lodge-ka ayaa habeenkiina waa la seexanay maalinkiina islaamuhu waxay ku bilaabeen seerarahooda dushooda inay ku ganacsadaan maadaama ay dad badan galabihii ama maalinkii ay meesha imaadeen inay bal ganacsiga sidaas uu ku bilaabay marta suuqa Islii Garissa Lodge suuqii dukaamo lodge-ka la seexanay ayaa waxa loo bedelay dukaamo islaamuhu ay seerarahooda ay ku ganacsanayeen maalinkii habeenkiina uu ku soxan jiray marka taariikhda suuqa wuxuu ka soo bilaabmay halkaas wuu socday suuqii wuxuu wada noqday dukaamo maasha Allah dukaamo noqday dukaamo loo bedelay oo dharkii sarreey waa laga qaaday waxa loo bedelay dhar suuqa ganacsiga Islii suuqaas ka bilaabmay haddana New Garissa Lodge baa la dhahaa waa ilaa 100 dukaan buu ka kooban yahay hadda oo arsi baa laga dhigo dib baa loo dhisay hadda waa suuq kadib markii uu suuqa Garissa Lodge uu suuq noqday ayaa goobihii ku xigay oo dhan ayaa iyaguna sidoo kale suuq noqday marka historigu suuqu halkaas ka bilaabmay haddana maantana waa aragtaan wuxuu marayaa moolasha hadda xaafadda waa 52 mool iyo ilaa 10 hadda dhismaysa oo soo socota laakiin hadda waxa dukaamo furan waa 52 mool 52 mool oo dukaamada hadda ka kooban yihiin dukaamadan haddii la teereen waa ilaa 10,000 dukaan marka ganacsiga baaxaddaas uu hadda maraya sidaasna uu ku bilaabay inta qofku waxa ganacsigu wuxuu ku xiran yahay bal intaad keentid hantida aad keentay ku xiran tahay marka Soomaalida hantidooda waa hanti aad u badan dekada Mombasa hadda dadka ugu badan alaabta soo dejiyo waa Soomaali dhaqaalaha isku wax dibadda laga keeno hadda ama dhar ha noqoto ama raashin ha noqoto ama cosmetic ha noqoto wax kasta hadda dadka ugu badan alaabta keena waa Soomaali taasina ma aha tartan ma aha waa baahi ay shacabka u baahdaan Kenya ay u baahan yihiin iyo dadkii Soomaalida oo keenay marka wax tartan ma jiro laakiin waad moodaa dhaqdhaqaaq hadii la xisaabiyo dukaamada iyo sida alaabta loo kala iibsanayo haddaad fiirisid magaalada inteeda kale Islii baa dad badan waa aragtaa baabuurta soo galaya xaafad kasta oo Nairobi kamida baabuurtooda inta laga raraa
shacab kasto xaafadda deg oo magaalada degan intay yimaadaan markii laga gudbo dadka bariga Afrika imaanaya Tanzania Rwanda Congo iyo Burundi ka imaanaya wadamada dariska ka imaanaya shacabkan Kenya ka imaanaya ayaa ka badan oo intay ka yimaadaan tuulooyinka iyo gobolada bay halkan alaabta ka iibsadaan baabuurtooda saartaan way baxaan basas baa yimaada caasiyaal baa yimaada looriyaal baa yimaada oo alaabta qaada marka Soomaalidu waxay keeneen ganacsi badan bay keeneen dad Kenyankana aad bay ugu faraxsan yihiin oo qiimahana waxaad moodaa inuu qiimo dadweynaha Kenya ay ku qanacsan yihiin marka taas keentay Soomaalida in aad alaabta lagu iibsado caqabado way jiraan hadda caqabadaha waxaa ka mid ah oo anagu hadda ka shaqeyno ka guddi ahaan waa xagga isgaarsiinta ama xaafadda nadaafadeeda jidadkeeda ammaankeeda waxyaalahaas oo dhan dadka ganacsatada way u baahan yihiin in xaafadda ammaan noqoto in xaafadda nadiif noqoto in xaafadda jidadkeedu ay dhisan yihiin hadda waa aragtay jidad badan baa la dhisay kuwo badan baa la dhisaya oo xaafadda dhexdeeda guud oo suuqa dhexdiisa ka mid ah taasna waa shaqadana anagu aan qabano oo u doodno oo dadweynaha inaan fahansiino xaqooda waxay leeyihiin waxa ayaga laga rabo dawladda canshuurta ka rabtaa canshuurta way bixiyaan dawladda hoose waxay ka rabtaa in dhaqaale ka rabtaa oo waxay ka qaadataa liisamada oo suuq waa inuu ganacsigu liisamo leeyahay liisamadooda kulli way wada cusboonaystaan sanad kasta way cusboonaystaan ayagu way u hoggaansan yihiin sharciga dawladda marka dawladdana inay waxooda siiso anaga u matalna anaga u hadalna anaga codsi ka qaadna oo dawladda u gudbina marka arrintaasina meel fiican bay maraysaa waxa sababay horta Soomaalidu waxay ku qanceen markuu ganacsigu xaafadda ku bilaabmay dadka maalgashadayaasha oo ama Soomaaliha aadan ama dad kale madowga ee Kenyaanka ah oo waxay ku qanceen xaafadda Islii ganacsigeeda lagu qancay marka nin kasta oo maalgashi haysta ama dibadda ka yimaado ama wadan gudihiisa ayaa waxa keenay in Islii ay ku kalsoonaadaan oo ka deegaan ahaan iyo ka ganacsi ahaan labadaba ay way kaafiday xaafadda Islii waxaad arkaysaa in hadda suuqakan kontonkan iyo labadan suuq ee mool ee suuqaqa ka kooban waxaa garab socda dhisbo deegaan oo ka badan kuwan oo dad maalgashiyaal ay samaynayaan marka xaafaddii waxaad moodaa kalsooni shacabkii baa kalsooni ka qaaday way ku kalsoonayeen xaafadda Islii inay deegaan ahaan ku soconayso ganacsi ahaan ku soconayso labadiiba xaafadda Islii baa qaadatay maalgashiyaashina way ku kalsoonaadeen way yimaadeen wayna maal gasteen ma malayn kartid inta apartment guryo cusub ee xaafadda laga dhisayo dad maalgashiyaalaana ka dhisanaya wayna ku faraxsan yihiin because markay guriga saa u dhammaystaanba isla markaa gurigu u buuxa waa la galaa kiraduna sana ugu socotaa waxaa garab socdaa dukaamadii waxaa garab socda isgaarsiintii telefoonadii iyo communicationka companyashana way ka shaqaystaan oo dadkii maadaama waxaa imaanaysa maalinkiiba dhowr boqol oo kun oo qof 500 kun oo qof baa imaanaysa ugu yaraan 250 waa dad u soo shaqo taga kana ganacsada inta in la agna way degan yihiin oo ku haraan xaafadda marka xaafaddu waxay qaadaa wax ku dhow nus milyan iyo waliba ka badan ayay qaadaa xaafadda u soo ganacsi taga galabtiina ka dheelmado xaafaddu xaafadda Islii waxa ay ka bulsho badan tahay xaafadaha kale ee ku yaal magaalada Nairobi waxaana ka baxa gawaarida aada xaafadaha gobolada iyo wadamada dariska la ah Kenya haweenka Soomaaliyeed ayaa waayadan dambe aad u soo galayay ganacsiga qaybihiisa kala duwan qaar ayaa alaab u soo degta qaarna wadada ayay wax ku iibiyaan maama Sacdiyo Guura Siyaad waxa ay ganacsigeedii ugu horeeyay ka bilowday iibinta shaaha oo suuqyada ku yaala xaafadda Islii ku wareejin jirtay shaqadan wax badan ayaan ku soo dhex jiray waxaan bilaabay shaqadan Nairobi 2008 xilligii ugu horeysay oo Nairobi aan ka shaqo bilaabay waxaan gidi jiray shaah ayaan gidi jiray marka ugu horeysay waxaan ku gidi jiray meel fadhi ah mataqaanaa hay la fariisto oo shaaha laga cabo ka bacdina waxaan keeni jiray Garissa Lodge marka 6daas bilood shaah ayaan gaday ka bacdina waxaan ku soo biiray suuqa markaan ku soo biiray waxaan ka bilaabay miis yar oo aan ku gidi jiray kobo marka alxamdulillah wax badan ayaan gaday miiskaas yarka wax badan ayaan gidi jiray kobaan gidi jiray alxamdulillah sanadkan waxaan dukaankan ayaan ka shaqeeyaa oo dukaankan ayaan soo degay horta sideeda dhanba wax waliba waxay leeyihiin juhdi lagu bixiyo xilliga aad juhdigaas ku bixiso ka bacdi ayaad ka miro dhali kartaa
markii ugu horeysay aniga xilligii shaah ma ahayn ganacsigii ugu horeeyay aan ka bilaabay waxyaalo badan ayaan ka shaqeyn jiray laakiin xilligii 2008kii ayaan waxaan bilaabay inaan shaah gado 6 bilood ayaan shaah gadaayay wallahi wuu iska dhib badan yahay waa shaqo aad u adag waxaad kacaysaa 9 saac oo habeennimaad kacaysaa maxay ahayd masaajidka salaada markii laga soo baxana waxaad isku dayaysaa shaah inaad suuqa keento alxamdulillaah waxaa laga yaabaaba inaad ma taqaanaa hay aad xataa dukaaminkii aad shaah ku shubtay xataa inaad aqoon weydo ma taqaanaa xilligii lacagtaad aruursan lahayday aad dukaaminka xataa aad kala fahmi weydo in ma taqaanaa koobabkii ma taqaanaa lacagtiiba aad meeshii aad uga tagto alxamdulillaah waa dhibaato iska dheer laakiin dib ma lahan shaqadu waa sharaf waxaan dhihi lahay intii ma taqaanaa hay gabdhaha iyo wiilashaba ay wax shaxaadi lahaayeen inay shaqaystaan shaqadu waa sharaf ganacsiga halkii aad ka soo bilowday ganacsigaagii hore iyo kan maanta aad gacanta ku hayso iyo heerka hadda uu maraayo farqi intee la ega ayaa u dhaxeeya alxamdulillaah horta ganacsiga heerar badan ayuu soo maray hadda sanadkan aan taaganahay wax ganacsi hoosaas ma jiraan xogaa ganacsiga hoos u dhacaya uu ku imaaday sabab waxa laga yaabaa customka inuu xogaa cabsanayo oo san imaa karinba ma taqaanaa hay suuqyada alxamdulillaah si kasta ay tahay laakiin waan ku noolnahay waan ka shaqaysanaa ilaaha ma hadda iska leh sida aan arko waayadan dambe dumarka aad bay ugu soo bateen ganacsiga maxaa sababay dumarka waayahan dambe shaqada aad ayay ugu soo bateen ayagoo hooyooyin ah ayagoo ma taqaanaa hay ilmahayaan ayagoo ma taqaanaa hooyada loogu talagalay inay gurigeeda joogto oo ciyaalkeeda ay haysato marka waxa koos gareyn kara hooyooyinka inay shaqada ma taqaanaa ay ku soo bataan waxa koos gareyn kara iyagoo aabihii uusan ku filnayn ilmihii iyo qoyskii sababii aan Kenya u imaado waxa kamid ahay nolol baan u raadinayay iyo meel ma taqaanaa hay nabadgelyo leh inaan helo oo ma taqaan nolosheedana aan ku maareeyo iyo ilmahayga noloshoodaba inaan ka maareeyo waa maxay sababta ka dambaysa in ganacsiga Soomaalida ay ku leedahay wadankani Kenya uu ka horeeyo ganacsiga jinsiyadaha kale ee wadanka ku nool horta Soomaalidu waa dad firfircoon waa dad isku dayashay leeyihiin qofku markuu wax bilaabo boqolaalan baa ku dayata marka qof ba hal hada saad suuqan hadda maanta konton iyo laba maray hal suuq ka bilaabay halkii suuq waa maanta wuxuu dhaliyay konton iyo laba suuq oo waaweyn oo caalami oo loo arko oo muuqdo oo muuqaalkooda ay idin muuqdaan Soomaalidu marka waa dad way iskaashadaan wayna isfiirsadaan markuu ruux bilaabo 10 qof oo kala wax isku darsanaysa wixii oo kale bilaabayaan ganacsigii bay aadayaan wixii bay soo adeegsanayaan marka waxay badinayaan dhaqaalihiisaas ku batay marka islii waxay hadda isu qaadatay muhiimadii baahidii ay shacabku u baahnaayeen ayay dhalisay Soomaalidu ay keentay baaxad waxa dega containero konton iyo dhowr container ba everyday dega konton iyo labo container xaafadda ay ku degaan maalin kasta waxa waa baaxadaas waxay muujinaysaa baahidii ay shacabku u baahnaayeen dharkii iyo wixii macluumaadka ay u baahnaayeen ayay keeneen taasna waxa keentay inay Soomaalidu iskaashadaan oo isku dardarsadaan oo shantii qofba container keenaan marka baaxadda inta la eeg waa firfircooni ay Soomaalidu leeyihiin oo Ilaahay siiyay iyo isku daasho ay isku dadeen ayaa keentay inay maanta suuq weyn noqoto maxay tahay sababta dumarka Soomaalida sanadadii ugu dambeeyay ku badiyay in ay qayb weyn ka noqdaan ganacsatada iyaga oo qaarkood ay ka mid yihiin ganacsatada ugu taajirsan wadankan inkastoo ganacsatada waa weyn ahayn laakiin dhowr sano waa ku jira suuqa alxamdulillah waxay u dhaliyay ganacsigan qof kastaba wax kasta oo sameeyay markaas baahi baa u geysa ganacsiga waxay ugu dhaliyay dan iyo mataqaana iyo duruufaha ka jira wadankeeni maadaama aan inta badan nahay Soomaalida ganacsiga waa dad isku jira dad waa dad wadankan u dhashay dad waa dad soo qaxay oo ka shaqeysto nabadgelyo u imaaday dadkaas marka Soomaaliyeed oo waxaan kamid ahay danta iyo duruufta iyo burburka u geystay saala socotin hooyooyinka Soomaali maanta iyaga laf dhabarkii waa umada haday tahay waaridkii haday tahay dadkii haday ilmahoodii tahay inta badan maanta dadkan maamooyinka suuqa ka wada shaqeysana inta badan waa dad ilmo wata waa dad ama gabar ilmaha lagu furay ama tu agoon haysata ama tu dadkeedii uu ka dambeeyo marka waxa igu kalifay inaan shaqadan soo galo kadib markii aan hooyo ilmo haysata aan hay
ilmahayga oo qaar agoonay isugu jira iyo kuwa aabahood aan kala tagnay reerkanagina uu isugaayo oo aniga aan u joogo meeshaan oo ayagana aan wax u diro oo caawiyo inta badan ama familka ay dhalaha ahaado ama qaraabaha ahaado marka wadankaana waa dhogta nolosheedu waa iska dhib badan tahay waxyaalo badan la iska rabaa culays badan oo wadankeena aan ka jirin baa ka jira guriga kirada soo qaaliya laga rabaa bil kasta markay dhamaato waxa lagu imanaa kiradii korontadii go'aysa guri hadaa fadhiid marka maxaa ku soo siyaaday gabdhaha Soomaalida oo marka inta badan aad iska gal duurka aad maqlaysid Soomaaliga Nairobi gabdhii joogay shiishada galeen intay ka baxeen waxa keenay waa duruufta ku kaliftay hadaad marka shaqaysanin oo aad guriga fadhido habeenkiina huridid saa ilmuhu ag jirto marka waaga bariyeen ay ku dhahan hooyo waxaasaan u baahana ama baambaris u baahanta ama caana u baahanta ama cunuga ka xanuunsaday hadaad shaqaysan marka xageed aadaysaa waa in laga faa'iideysto marka waa in meel aadan markaas istaahilin lagu kaxeeyo waa inaad raacdo naagihii la bisanayo oo suuqa aaday waa inaad mataqaana meel aan munaasab ahayn aad wax ka raadisid marka sidaas darteed waxaan ku fakaray inaan soo galo ganacsiga waxaan bilaabay 2012 ilaa haddana waan ku jiraa alxamdulillah kaba boorsooyin waxaasayto mar waa dirsanaa mar waxaan ka qaadanaa dadka keena oo retail ba iska nahay inta badan alxamdulillah shaqada marka waan ku fiicanahay waana ku faa'iidnay gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inta badan hadaa xataa gabar tahay oo halkan aad joogtid uu ku baahan yahay dadkiini hadaad hooyo tahay ilmo haysatay hooyada ilmahaagay waxbarasho ka rabaan nolol bay ka rabaan wax kasta kaaga baahan yihiin waa inaad wixii mataqaana aad isku xilqaanto maanta waxa waayeen hadda waxa jooga halkan waxaan ku haysaa laba cunug wiil walaalkaya family dhan baan nahay dadkaygii inta qof u baahan yahay ama reer u baahan yahay u baahannahay alxamdulillah waana isku dabaray waan ku fiicnaa ilaaha ku mahadsan marka shaqo waa sharaf shahaad baa ceeb marka qofka ku cusub Kenya haddana doonayo in uu ka bilaabo ganacsi waxa ugu horeeya oo ay adag tahay in uu la qabsado luqadaha Sawaaxiliga oo dadka qaar ku adkaata in ay fahmaan wallahi caqabado badan kamid ah xagga luqadda kamid ah maxay ahayd kulli hadii aadan wadan adiga maxay ahayd qariib ku tahay aad imaato noloshiisa u maareyn lahayd iyo saad ula qabsan lahayd mataqaanahay wax badan oo mataqaanahay cariiri ayaa kugu imaanayo wax badan oo mataqaanahay dhibaatooyin ayaa ka hor imaan karo laakiin alxamdulillah ilaahuma hadda iska leh waan iska fiicnaa waan nabad qabnaa waan iska shaqaysanaa wax dhibana hadeer kuma qabno aad baa u mahadsantahay isbedelka ku yimid noloshayda ganacsiga bacdi waxa waaye bariga hore markaan guriga iska joogay waxaan ahaan jiray yaani qof dad baan wax ka sugi jiray maanta hadaan dhakhtar u baahdo hadii maanta qof qaraaba ila soo hadlo waan walwali jiray markaas because qof maanta dhibaataysan ku soo wacay saana jirtu ku leeyahay guriga joogta adigii maybe inaad biil yar qaadanaysid ama inaad qof qaraaba ku tiirsan tahay qofkaas waxba uma awoodid laakiin maanta alxamdulillah maanta duu qof ku soo qaraaba kula soo hadlo haduu dhib adiga ku qabsado marka aad shaqaysanaysid waad isdabari kartaa isla markiiba si geesinimo leh alxamdulillah laakiin marka aad shaqaysanaynin waxa taa qof aad iyo aad u hooseeyo oo waxa taa iska daciif ah tahay marka alxamdulillah shaqadii waxaan ka helay baawar waxaan ka helay geesinimo waxaan ka helay inaan kaligay aan isdabari karo oo aan noolaan karo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo inta badan aan shaqaysan maanta way buuxaan ayagoo ilmo la wada rafaadaya waxaan dhiilaa shaqaysta shaqadu ceeb maahan shaah baa la gadaa cajiin baa la gadaa cus baa la gadaa saliid baa la gadaa wax kasta baatiya la wareejiyaa shaqada wax kasta laga bilaabaa iclaan baa la xirxiraa shaqada marka waa sharaf gabdhaheena Soomaali oo inta badan Nairobi waliba la sii xamanayo waxaan dhihi lahaa hala shaqaystaan adeegashada waxa ku badan dadka Kenyaanka adeegashada ku badan مثل هذا أنا شوبين كان هذا أنفرديو وكوها بقولكيبا 95 وحاقاتان محي هي كيان كسب كيان كأياقاته لقيا بالصومالي ذا أسبوعي بقى مبشي بقى هالقفا صومالي إن أركتو متقنا هي كبرادينايو مع ذلك هذا الديزاين أنا عن قنوة الديزاين ذا صومالي ذا استعمالا نحوجا إني كل دوينهم بحاجة هي لسكا aad baa u mahadsantahay duruufaha ganacsiga ka soo baray way farbadayeen horta waxaan ka bilaabay suuqan Taysiir waxaan ka bilaabay kabahan iyo boorsooyinkan iyo waxaan la gadaayan ka bilaabay way dhib badan tahay shaqo kastooda aqoonin way dhib badan tahay shaqadan waxa la rabaa marka aad bilowdo soo gasho suuqan kabahan waxay u baahan yihiin inaad minus aad ku fiirso
kab kastoo aad soo bixinaysa lambar filan marka lambarkii minuska inaad ku fiirisaa laga rabaa box isku eg ma jiro kab u egna ma jirto waxa kale kabaha waa inaad baangeysay ka rabaan oo toosisid wax kasta soo jeesid markaan soo galay guri iska joogi jiray raaxan iska jiray laakiin markaan shaqada soo bilaabay kabaha marka la dhaho baangee oo kale inay xag u soo jeedaan xag u sii jeedaan ma kala aqoonin dhibka ugu badan wuxuu ahaa baangeeska horta kabaha waxa kale igu sii xigay raadi marka la dhaho ilaa aad ka fahanto waqti u baahan inaad ka fahantid maanta kabtaad keentay iyo t-shirt aad hayso waa different minus waa isku minus maahan waa inaad kabti fahanto minuskeeda fahanto marka kabaha waxaan ka soo maray waa aad shaqo waxa weey u adag alxamdulillah 2012 aan bilaabay kabaan ka bilaabay miis yaraan ka bilaabay haddana alxamdulillah waxaan deganahay laba dukaankan arkaysid iyo dukaankaas kaleeto oo ku garab yaala boorsooyinkaan ku soo daray alxamdulillah haddana next year waxaan rabaa insha Allah dhar inaan ku daro hadii ilaahay aan sii socdo waan ku sii jeclaadaba shaqadii waan ku sii mashquulay waagi hor saaxiibaan lahaan jiray guriga markaan joogay gabdha lahaan jiray dadka xataa waa caawin jiray oo maxay ahayd qof iska bulsho badan ah laakiin markaan shaqada aan bilaabay waxaan noqday saaxiib waxa la noqday shaqadii kaliya saaxiib kale uma baahnid markaa shaqaysanaysid alxamdulillah muuse sheekh daahir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa dukaanada ay ganacsatada Soomaalida leeyihiin ee suuqa Islii waxa uu ka howlgalaa dukaankan inta uu ka helana ku maareeyaa noloshiisa iyo tan qoyskiisa waxa intaasi dheer in habeenkii marka uu shaqada ka baxo uu iskuul dhigto wallahi dabcan waa waqti ugu qaatina helo laakiin waxaan sameeyay in dad u diro raadiyo oo dad la shaqeeyo raadiyo aan isku day markii dambe waxaan ku guuleystay inaan helo oo aan dukaankan ka shaqeeyo ilaa wili meeshii aan shaqada ka bilaaban joogo waxaan jeclahay insha Allah inaan sida ugu holkarsan oo shaqadeeda uga shaqeeyo wallahi farqi u dhaxeeyo marka iimaanay magaalka washidnay waa la ganacsanay dadku way kala socdeen dabcan isbuucyadan ugu dambeeyay iyo doorashadii waqti la soo bilaabay markii la soo gaaray ay ganacsiga hoos u dhacay oo magaalada noqotay magaalada oo dadku ku yaraaday marka waxa sidii kara waqtigan iimaanay iyo hadda waxa ganacsiga uu xoog badnaa markaan iimaanay dabcan markii doorashada laga soo laabtay maalmahan dambe labadan maalin doorashada kadib ganacsiga aad uu soo korcaya oo dadku wax arkaysa magaalada yaacayaan wax gadanayaan wax ku weydiinayaan laakiin doorashada kor waxa laga yaabaa maanta dhan inay dhowr qof oo kooban ay ku yimaadaan ay wax ku weydiinayaan inay ka gataan shaqada hadda aad hayso caqabadaha aad kala kulanto maxaa kamid ah wallahi caqabadaha shaqada jirta waxa kamid ah teemka oo iska fuul ah Islii sida lagu yaqaano teemkada oo maalin lahayn jimco lahayn axad lahayn oo fasax lahayn oo maalin kasta la shaqeynayo laakiin wax caqabado kale ma jiraan waa ganacsiga kala caadi aan wadnaa subaxii meeqa saac soo gashaa subaxii hal saac soo gala shaqada meeqa saac ka baxdaa waxaan ka baxaa 12 wallahi waxbarashada xaggeeda waan jecelahay welina waxaan jeclahay inaan sii barto hadda dugsiga dhameeyay marka dugsiga markaan dhameeyay kadib waxaan isku dayay inaan aan raadsado noloshii iyo qaybtii qarashkan jaamacadda ku dhigan lahay waxaan rajaynayaa marka aan helo lacag helo inaan waxbarashadii hore u sii wada dabcan haddana waxaan bartaa habeenkii aan dhigtaa luqadaha iyo aan bartaa waxba martaa haddana kama gaabin marka inaan maxaa ka jira in haweenka Soomaalida marka ay ganacsiga galaan ay ku adkaato dhaqashada reerka waxaana ka jawaabaysa Ramla ma sha Allah raga dhahtaas laakiin ma aaminsani gabadha haday shaqeynayso haday gabar tahayna waa gabar haday marwo tahayna reerkeeda wax ku soo kordhinaysa marka kale waxaan intaas aaminsanahay inay waxba aysan ka jirin hadaad shaqeysato ilma aad leedahay adiga ma gurigaaga wax ka la xijaalaysanaysa waa maya يعني waxay isdhahan amar ma qaadanaysi waxaas ma jirtaba maxaa la isku amraay marka horeba labada qof inay isxushmeeyaan ba isku leeyihiin marka gabadha haday guri leedahay shaqaysatana waa sharaf ninkeedana sharaf ay u tahay familkeeda sharaf ay u tahay mid kale ninka xataa kuma mashquulayso marka guriga fadhido oo iska fadhido maanta inta biilkii la sii iclaankii saarto kareemka saarto 6 saac hurdo ka soo kacdo markay la bisato asaga ku mashquulaysa iyo uu soo daahay iyo saacadan xagee ku maqan yahay laakiin marka shaqaysanaysid inuu joogo iyo inuu maqan yahay warba kama haysidba waxa laga yaabaa idinkoo daalina guriga isugu imaadaan ama inaad ahdid in waxaas loo sameeyo oo yaani labadiina qof inta badan isku mashquul ka isfahantaan marka nimanka Soomaaliyeed waxa leeyahay gabdhaha ha shaqaystaan shaqada ku horseeda ku dhiirigeliya waa maasantahay sida Soomaalida inteeda badan ay sameeyso way isgacan qabtaan
adiga iyo hablaha ganacsatada ah ee hadda ku sugan halkan ma gacan qabataan gabdhaha cusub ee halkan yimaada ee raba inay ganacsi sameeyaan ama shaqooyinka ku soo biiraan ama ay suuqa ku soo biiraan aad iyo aad waa su'aal muhiim ah waan gacan qabanaa wax kuma gacan qabano dhaqaalan sinaa kuma dhahay inta badan laakiin waxa laga yaabaa meesha waa ugu soo horeynay meesha wax laga soo qaadanaa inaan naqaano wixii soconaa inaan naqaano sidii qofku shaqadii uu wadan lahaa waan ka caawinaa waan la soo adeegnaa wixii soconaya wixii inaan tustusno yani qof walaalka ahoo mataqaana adig kuu baahan wixii awoodaada ah waad ku caawinaysaa marka waan caawinaa 100% waan caawinaa shaqada ugu adag oo ay haweenku ka qabtaan xaafadda Islii waxaa ka mid ah iibinta shaaha Zaynab Maxamed waxa ay shaqada soo gashaa 6 subaxnimo si ay u kariso shaaha ay u iibgeyn lahayd suuqyada ku yaala Islii waxaa taasi sii dheer Zaynab kama rajo dhigin waxbarashada waxa ayna habeenkii fiidkii hore wax ka barataa iskuul iyada oo maareysa nolosheeda iyo tan qoyskeeda أول مسا هذا الحمد لله وفي عنها لكن أول مركا عن شاحب بلا ظروفه كل دوم بالله كل ما يصير أنا قانجو أنا أقونين إسكاكي قمن شرين مر والبا المرمر اللي يجين جري مالها هذا تكلم حكومة ست هلا كلا إن ظروفها ساكمد مر إنا إسكاكوفو أنت جران جراس الله كرمانا كلا أخون إسكاكوفو مركا الحمد لله وان كان ولا هاي هذا وعلى قبصدي واشق استاها بينكين وحباب برتا ما شاء الله إن قرمي بلاودي شهكرينتا شهكرينتا إلا أي فوتينك إلا هذا واقرت إن أديكو نولشة كليميات كماري سامستن رير كاغا نولشة إذا يتن رير كيغا خاصة أني إلمها هو يدي إذا شيء أو أغون أبوه دنتي أن كماريا هبينكي سيدي دوكسي أو كلا لغة إنجليزكا أو كلا أن هبينكي أداء أدق يعني إسكبحية ها أنا إسكبحية وح الله وحي وبحايا دن أنا إسدبرو ما شاء الله يعني إلا هذا إلا ما يقع عمل كوجرتا شهكرينتا إلا يو أدي فوتينك إلا هذا 6 سنة أو ملينا يعني تاي 6 سنة أكشقينا يا واقرت إن مركا إن مرجينا إنك كجذبت أو محلتها شاهي أنت كجذبت أدو حيابك لقبته إن شاء الله ورجينا يا إن شقيستا أن شقدي تسيب اللاري ورجينا يا إن شاء الله تعالى ما شاء الله سو waxa ii sheegtay in ilmaha kula dhashay ay agoon yihiin oo reerka iyo hooyadaadii aad biishid intee ku nool yihiin reerkii gobolada Soomaaliya qaasatan gobolka Gedo degmada Balxaaday hooyo ku nooshahay halkaas aan inta uga xamaala ayagan halkaas waxbarashadoodii halkaas inta ka dabara ma sha Allah farqi badan baa u dhaxeeya ma sha Allah waan fahmay hadda nolosheeda waan la qabsaday إن شاء الله تعالى مركان سفعان أو شقة سنة وحن رجينا أنا دبي ودن كي يقصي النقطة. أنت أي نقصو جبين هنا برنامج كوايها بالشدة وأن تضبط كان قصو قاعدنا تاريخ الجناع سجى حافظ إسلي أنت أي نقول كل مدة تضبط كسوس عدا وأنا جو سميرة عبد الله جامع نبتقليو.